warar soo baxaya ayaa sheegaya in booliska magaalada Columbus ee gobolka Ohio dalka Mareykanka ay xabsiga dhigeen muwaadin Soomaaliyeed oo mindi ku dilay walaalkiis ka weynaa siday baahisay warbaahinta Mareykanka. Zachary Hirad oo 20 jir ah ayaa mindiyay oo nolosha dhaafiyay walaalkiis Maxamed Hirad oo isaguna da'diisa lagu sheegay 20 jir falkan oo shalay dhacay. lama oga sababta rasmiga ah ee ka dambeysay dilkan. waxaa socda baaritaan ay wadaan laamaha ammaanka ee dalka Mareykanka oo maanta sheegay in gacanta ku soo dhigeen Zachary Hirad iyadoo dhacdadan argagax la ay timid muddo yar uun kadib markii isla magaaladan lagu dilay sheekh caan ka ahaa gobolka Ohio lagu magacaabi jiray Imaam Maxamed Xasan. Si kastaba ha ahaatee, rabshadaha iyo dilalka dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa aad ugu badan magaalooyinka Columbus iyo Minneapolis ee dalka Mareykanka, Toronto oo Canada ah, London oo UK ah. taasina waxay keentay in qoysas badan ay carruurtooda la soo cararaan dalalka Soomaaliya, Kenya, Turkey iyo Masar si ay uga badbaadaan rabshadahan. dalka Mareykanka magaalooyin ku yaala waxaa ka dhaca mararka qaar dilal ay isku geystaan dhalinyaro Soomaaliyeed, waxaana dilkan cusub ee ka dhacay magaalada Columbus walaac ka muujiyay waalidiinta Soomaaliyeed ee ku nool dalkaas Mareykanka. Cabdi Xaaji, warbaahinta Nation, Muqdisho.